waa maxay ceeb? Maxaad u taqaanaa ceeb? balse ma jecelid ceeb aadan lahayn inaad qaadato. waa mowduuceena maanta. fadlan haddaad nagu cusub tahay followna soo dheh si aad noola socoto waxyaabaha aan halkan idinkugu soo gudbino mustaqbalka dhow. ma jiro qof aan lahayn ceeb uu jecel yahay inaanay dadka kale ku arkin. sheekadan waxaan saaxiibadeena nagu xiran kula wadaagaynaa talooyin qofka sida ay yihiin u qaata ka caawinaya in ceebahaas ka gudbo iyagoo aan waxba u dhimin sharaftiisa iyo dareenka naftiisa midna. daymo gaar ah naftaada ku eg, hana ku mashquulin waxaad adigu u haysato, ee waxaad isku daydaa inaad xoogga saarto waxyaabaha dadka kale ee ka aaminsan yihiin. iska jir inaad la saaxiibto dadka dhinac xun wax ka eega si aanay hoos kugu sii celin. weligaa fadhi ha la wadaagin dad aad og tahay in shaqadaada ama howlahaada aad qabatay yaraysanayaan ama wax muhiim ah aan u arkin. waxa aad barataa inaad ka jawaabto naqdiga kaaga yimaada dadka noocan ah, laakiin waa inay jawaabtaadu noqotaa dhoola caddayn iyo kalsooni. 3. iska jir in aad qof xun ka dhigato xidig aad ku dayato. waxaad ku dadaashaa qofka uun sidiisa u raacin, balse aad barato oo daraasayso jidka uu maray guusha aad ku jeclaatay. kadibna duruusta aad jidka u maray aad ka baratay ka dhigato dow aad kugu gudubto waxaad doonayso. 4. ka dheerow xaasidnimada, calool xumida, cabashada badan, ganuunac joogtada ah, eedaynta, madax adeega iyo isla weynada. dhammaantood waa dabeecadaha aad ku neclahayd qof kasta aad ku aragto. haddaba ogow, dadku ma jeclaysanayaan inay la macaamilaan qof dabeecadahaas leh. ugu dambayn, mar kasta ku dadaal inaad dhegaysato oo aad la tashato dadka sida cilmiyeysan ee maangalka ah wax kuugu sheega. intaas ha inoo joogo mowduuceena maanta.